Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday midowga musharaxiinta kuwaasoo la wadaagay liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan ee ku jira gudiyada maamulka doorashooyinka ee labada heer. xubnahan ka socday midowga musharaxiinta ayaa guddi ay iska soo xuleen midowga musharaxiinta kuwaasoo kala ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. soo gudbintan liiska cabashada ay ka jirto guddiga maamulka doorashooyinka ee labada heer ayaa qayb ka ah heshiiskii golaha wada tashiga qaran ay ku gaareen magaalada Muqdisho kaasoo ku caddaa qodobka koowaad ee heshiiskaasi. afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa warbaahinta u sharaxay go'aanadii ka soo baxay kulankii Ra'iisul Wasaare Rooble la qaatay xubnaha ka socday midowga musharaxiinta. ayaa waxa ay soo gudbiyeen liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan ee labada qaybood ee kuwa haddii aan lahayn kuwa federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada. liiskaasi Ra'iisul Wasaaruhu uu ka qaabilay xubnahaasi ka socday midowga musharaxiinta waxaana uu isla maantaba uu gudbiyey xubnihii guddiga golaha wasiirada ee horey uu xil saaray arrinta soo hubinta gudiyadaasi. marka Ra'iisul Wasaaruhu sharaf bay u ahayd inuu xafiiskiisa ku qaabilo uu soo dhaweeyo madaxdii hore isla markaana si qalbi furnaana waxyaabaha cabashada ay ka qabaan si dalkan doorasho uu aado ayuu maaragtay kulankaas la xiriiray. kadibna shaqadii haddii abaydmo way sii socon doontaa. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu samayn doonaa in liiskaas markay u soo gudbiyaan xubnaha golaha wasiirada uu xil saaray uu hubiyo oo isagana marka ugu dambeyntii uu kuwii lagu bedeli lahaa la soo saaro digreeto lagu soo saaro. qofkii la hubiya ee aan maaragtay aan soo gelin ama eedeymaha loo soo jeeday aanay daw ahayna sidoo kale waa lagu celin doonaa oo guddiga ayuu xubin kasii ahaan doonaa. marka arrintaas oo dhan waxaa hubinaya guddigaas uu Ra'iisul Wasaaruhu ku aaminay hawshaasi kadibna isaga ayaa xaqiijinta kama dambaysta ama go'aanka kama dambaysta qaadan doona. aad iyo aad buu runtii ugu faraxsanaa Ra'iisul Wasaaruhu inuu soo dhaweeyo madaxdii Soomaaliya oo xafiiskiisa ay ugu yimaadaan. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.